أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي سبحانه وتعالى ما دام صفاتك أي تلمامها وليهي وإن أبوري وإن ليهي وإن معموله ونعمي وناك استوي نسيي وحق إنه يقول لي يا رب سبحانه وتعالى إنه ينقلنا الدوام الدبا وإنه حقيقينه ujeedada ilaahay inoo abuuray saaxiib wanaagsan dooro waa dantaada saaxiibka xunna iska ilaali oo ka fogow qofka muuminka ahi hadduu taagan yahay hadduu fadhiyo hadduu jiifo hadduu soconayo hadduu arrin adduunye ku jiro hadduu masaajidka fadhiyo hadduu goobtiisa ganacsi dhex fadhiyo waa midaan marnaba ilaahay subxaana wa tacaala aan ilaabin qofka masaajid ilaahay daraaddii u dhisa ikhlaasan magac ku dooni maayo maamuusna kuma rabo manfaca adduunyana hadalkeeda baddaa ilaahay buu wax kaga doonayaa ilaahay wuxuu ku abaalmariyay inuu guri jannada uga dhiso ina alinsaana lafii khusr ila aladiina aamanuu wacamiluu الصaalixaat watawaasaw biاlxaqi watawaasaw biالsabr afartaasi arrimood waktigu waa qaali oo anigaa ku dhaartaye ha ku dhammaada weeyaan macnaheedu iimaan camal saalixa sabir aad ku sabirto wanaagga xumaanta aad ka sabirto qadarada ilaahay u xanuujiyana aad u sabirto iyo wanaagga ilaahay subxaana wa tacaala adiga uu kugu galladaystay inaad dadka kalena u gudbiso bakhayl aanad ku noqon abu hurayra radia allahu canhu wuxuu soo maray dadkii oo suuqa jooga oo ku mashquulsan howlihii adduunyo beec iyo shiraa inay wax iibiyaan iyo wax kala iibsadaan wuxuu ku yidhi ayuha annaas antum haa huna wa miiraahu nabiyikum yuqsamu fi lmasjid dadoo halkanaad fadhidaan dhaxalkii nebigiinana waxaa lagu qaybinayaa masaajidka dad baa masaajidka yimi iyagoo u malaynayey xoolo uu rasuulku calayhi salaatu wasalaam ka tegay masaajidka in lagu qaybsanayo waxay arkeen masaajidkii oo qur-aan lagu akhrinayo qur-aan lagu baranayo masaajidkii oo xalaqaad cilmi ay ka ogan yihiin oo ay ka socdaan waxay ku soo noqdeen abu hurayra radia allahu canhu waxay dhahan yaa aba hurayra inamaa taquul abu hurayra waxaad sheegaysay mee masaajidkii kumaanaan arag wax xoolaa lagu qaybinayo وكل إنسان ألزمنا طائره في عنقه إلهي با وحو يري قف والبا وحانو قورتا وصرني عمل كيس وحانا نوسو صار دونا مالنت قيامان صهر لقي دونا إساقوا قرال وأخريو اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وحلوران دونا أخري قرال الذي لقى سميي نفتا دامانتا كوغو فيلان عدكو حسابي أديقو قرنقص أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا الحمد لله حق حمده وله الشكر على نعمه وآلائه ثم الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaynu ogsoonnahay dhammaanteen haddaynu nahay dadka muslimiinta ah qur-aanku inuu yahay hadalkii ilaahay subxaana wa tacaala ilaahay baa yidhi isagoo inoo sheegaya xaqiiqadaasi wain axadu min almushrikiina istajaaraka faajiru xataa yasmaca kalaam allah qur-aanku inuu hadalkiisii yahay ayuu rabbigeen subxaana wa tacaala si cad inoogu sheegay qur-aanka waxaa sharaf qiimo magac maamuus iyo ixtiraam wuxuu ku helo ugu filan inuu yahay allah subxaana wa tacaala khaaliq ee kownkan abuuray
hadalkii uu ku hadlay ka soo baxay ee uu ka maqlay malaku jibriil sidaana uu ku soo gaarsiiyay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ilaa inaga uu ina soo gaadhay waynu qiimeyn karnaa marka la idhahdo qur-aanku waa hadalkii ilaahay inaanu la mid ahayn hadallada makhluuqaadka oo khaaliqa oo allaha subxaana wa tacaala iyo makhluuqaadku inagu aynu ka mid nahay siday u kala duwan yihiin ayaa hadalka allah subxaana wa tacaala iyo hadalka makhluuqaadkuna ay u kala duwan yihiin hadalka makhluuqu isaguu la qiimo yahay hadalka ilaahayna subxaana wa tacaala waa sifadii iyo tilmaantii rabbi subxaana wa tacaala oo taasuu qiimo magac maamuus iyo sharaf qadanin iyo ixtiraam iyo weyneyn intaba uu ku mudanaya ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka kariimka ah oo ah hadalkiisii saasi aynu tilmaanay waxa uu ka dhigay ka ay ku jirto sharafta iyo qiimaha qofka bani aadamka ah marba qofka qiimihiisa iyo qadarkiisa iyo wanaagiisa iyo hagaagga noloshiisu waxay leekaanaysaa qur-aankaasi inta uu jiro qofku ilaahay baa subxaana wa tacaala tilmaamay qur-aanka dikrigeenna iyo sharafteennu inay ku jirto iyo sharafta iyo dikriga iyo qiimaha kuwii inaga horreeyay ay lahaayeen wuxuu ihi nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam isagoo xaqiiqada inoo muujinaya in allaha sayarfacu bihada alkitaabi aqwaama wayadacu bihi aakhariin ilaahay dad buu kitaabkan kor ugu qaadaya waa kuwii qur-aankan usoo jeestay ee xeedhada ilaahay subxana wa tacaala ee qiimaha badan ka qeyb galay waa kuwii quluubta usii daayey quluubtooda uu ku weynaa iimaan iyo khushuuc alla ka cabsi iyo toosnaan quluubtooda uu ka buuxiyey waa kuwii noloshoodu ay noqotay xayaatan qur'aaniya nolol qur-aanka waafaqsan oo qur-aanka ku salaysan kuwaasi qur-aanku sharaf buu u yeelayaa iyo sareyn adduunyada inta ay joogaan aakhirana jannada marka ay galaan kuwii jannada galay laakiin qur-aan yaqaan aan ahayn iyaga ayaa ka sareynaya oo darajo sare iyo martabad kore jannada ka gelaya yuqaalu lixaamili اlqur'aan iqra' waratil kamaa kunta turatilu fi اdunya wartaqi faina manzilataka cinda aakhiri aayati taqra'uha waxaa la odhanayaa qur-aankii akhri jannadu waa darajooyin aada u kala sareeya oo jannada darajooyinkeedaasi kor halka aad jannada ka degaysaa waa halka aayadda u dambeysa ee qur-aanka ka midii ay kaaga dhammaato qofku xataa markuu dhinto dadka kale ee dhintay ee muslimiinta la mid maaha qofkii ahaa xaamil qur-aan mid qur-aanka xambaarsan maalintii uxud markii dad fara badan oo muslimiin oo saxaabaha lagu laayay dagaalkii uxud in badanna ay dhaawacmeen daal fara badan iyo baahi baaxad lihina ay jirtay wuxuu rasuulku amray calayhi salaatu wasalaam 2 qof iyo 3 qof iyo hal qabri in lagu wada aaso waxaa rasuulku odhanayey marka 2 saxaabi qabri la gelinayo ayuhumaa akharu akhdan lilqur'aan koodeeba ahaa mid qur'aan badan xifdisan oo laabta ku haya marka la yidhaahdo kaas isaga ayuu iilka ku hormarinayay salaada marka la tukanayo waxaa rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam inoo sheegay inay dadku u kala horeeyaan oo tukinta ay u kala mudan yihiin iyo imaamnimada say u kala qur'aan badan yihiin yaumu lqowma aqra'uhum likitaab illah qoomka waxaa tukinaya oo imaam u noqonayo salaada ku hogaaminaya waana mansib iyo darajo sare kooda u qur'aan badan sidaas ayaa qur'aanku adduunyada marka la joogo qabriga marka la galo ilaahay marka la hor tago janno marka la galo dadkiisii kor ugu qaadaya wayadacu bihi aakhariin kuwo kaluu ilaahay subxaana wa tacaala qur-aankan sababtiisa hoos u dhigaya way duloobayaan qur-aan la-aan awgeed bay la duloobeen qur-aankii baanay rumaysnayn ma akhriyaan kumana camal falaan noloshoodana kamay dhigin mid qur-aanka ku salaysan taasi waxay sababtay inay adduunyada ay ku duloobaan qabrigana cadaab ay kula kulmaan aakhirana jannada ay ka qadaan waayo qur-aanku waa wadada jannada loo maro wuxuu yihi cabdullaahi ibnu mascuud radi allahu canhu man itabaca alqur'aana
xalla bihi fi ljanna qofka qur-aanka raaca siduu hogaaminayo jannada ayaa qur-aanku uu dejinaya. waman taraka alqur'aana itabacahu xataa yaqdifahu fi nnaar qofka qur-aanka ka tagana qur-aankaa dabada ka riixaaya ilaa naarta uu ku tuuro qur-aanku. waa waddadii jannada loo maraayo, waa isaga ayaa astaynaya oo tilmaamaya oo dadka u sheegaya waxaa jannada lagu galo iyo waxaa janno lagu waayo, waxaa naarta lagaga badbaadiyo, waxaa sabab u noqda naar in la galo. qur-aanku waa hadalka ilaahay subxaana wa tacaala. ilaahay wuxuu u soo dejiyey in lagu caabudo. cibaadana macnaheedu aada buu u ballaadhan yahay. macnaheedu wuxuu noqonayaa in qofka noloshiisa oo dhan ay noqoto nolol qur-aanka ku salaysan, oo qofku uu noqdo qof ka dhimbiil qaadanayo o ka duulaya qur-aanka kariimka ah, oo qur-aanku wuxuu u ogolaadana sameynaya, wuxuu u diidana ka fogaanaya, wuxuu qur-aanku ammaanana jecel, qur-aanku wuxuu dhaleecayana neceb, isla markaana ka fogaada oo ka durka. waana siday ahayd noloshii rasuulku calayhi salaatu wasalaam, oo qof kastoo looga sheekayaaba uu jeclaysanayo noloshiisu nooca inay noqon lahayd aada iyo aada uu qiimeynaya. markii la weydiiyey caaisha radia allahu canha rasuulka caleyh afdal salaatu watasliim dhaqankiisu sidee buu ahaa, qaalat kaana khuluquhu lqur'aan, qur-aanka ma akhridaabay ku tiri ninkii su-aashaa weydiiyey. wuxuu yihi haa. rasuulku waxay tihi caaisha rasuulka caleyh salaatu wasalaam noloshiisu qur-aan bay ahayd. yacnaa qur-aanka marka lagu soo dejiyey nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam muu ahayn miduu akhriyo oo dadka uu ku tukiyo oo cod fiican uu ku akhriyo oo qura. wuxuu ahaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam qofka u horeeya qur-aanku wuxuu sheegay u hogaansamaya. waana awalu lmuslimiin, ilaahay baa sidaa amray inuu noqdo ka u horeeya ilaahay u hogaansamaya, qur-aanku sida uu ka doonay ee loogu sheegayna u dhaqmaaya ee u noolaanaya. saxaabadii rasuulkuna sidaas oo kale noloshooda waxaa hagaajiyey wuxuu ahaa ee bedelay isbedel la yaab leh hada alqur'aan alkariim, qur-aankan kariimkaa ee maanta isagoo masaaxiifta ku qoran, canjaladahana ku duuban, miimiriyadana ku kaydsan, dhexdeedna yaalla, in fara badanna agtooda ku dayacan. alqur'aan alkariim ilaahay wuxuu ugu talagalay inuu noqdo ka noloshan bani aadamka qurxiya, isla markaana hagaajiya oo ka dhiga nolol lagu gaadho nolol fiican, nolol lagu gaadho raaxo qalbi, nolol lagu gaadho deganaansho iyo xasilooni. waayo qur-aanku waa kale man camila saalixan min dakarin aw unthaa falanuxyiyanahu xayaatan طayiba. qofka isagoo muumina camal wanaagsan sameeya, camalka wanaagsanna waa inta qur-aanka lagu sheegay. ilaahay wuxuu u ballan qaaday inuu nooleynayo nolol wanaagsan adduunyada intuu joogo iyo aakhira markuu tago. waa noloshii ay ku jireen saxaabadu ridwaan ullaahi calayhim iyo dadkii inaga horreeyey, oo raaxada qalbigii ay dareemayaan markii ay ka turjumeen waxay lahaayeen hadday ogaan lahaayeen nimanka boqorada ah iyo boqoradu inamada ay dhaleen noloshan aanu ku sugannahay oo si kale aanay ku helahayn, seef inay nagaga qaadaan mooyaane seef bay nagaga qaadi lahaayeen. raaxadii dhabtahayd bay gaadheen oo ah raaxada qalbiga, noloshii wanaagsanayd oo ah raaligelinta ilaahay subxaana wa tacaala. taana waxaa ku hogaamiye oo gaadhsiiyey hada alqur'aan alkariim. dadka maamulkooda iyo nidaamkooda, cibaadadooda, akhlaaqdooda, guryahooda, nolosha ka jirta, iibkooda iyo iibsigooda, guurkooda, axwaashooda oo dhami waxa ay ku hagaagaysaa in hage laga dhigto alqur'aan alkariim. ilaahay baa yihi ina hada alqur'aana yahdi lilatii hiya aqwa. qur'aankani qofka raaca wuxuu ku hanuuninayaa wadada u toosnaanta badan, weligii meel xun ku tusi maayo. wuxuu ku tusayaa meel wanaagsan oo dantaadu ay ku jirto, waayo waa kalaamu lkhaaliq. ilaahayna addoomihiisa cid ka taqaanaa ma jirto. isagaa ilaahay subxaana wa tacaala waxaa danta wa ay ku hagaagayaan cid walba uga ogaal badan. alaa yaclamu man khalaqa wahuwa latiifu lkhabiir. laakiin arrintaas maxay u baahan tahay iimaan iyo yaqiin qalbiga gasha, oo qofku inuu aamino qur-aanku inuu yahay ka ay noloshu ku hagaagayso, inuu yahay wax nolosha lagu maareeyo waxa u wanaagsan. afa xukma aljaahiliyati yabquun waman axsanu min allahi xukma liqowmin yuqinuun. wax kastoo qur-aanka khilaafsan jaahiliyu ilaahay ku sheegay, qur-aankana maareyntiisa wuxuu ku sheegay maareynta u wanaagsan. taasi waxay u baahan tahay qofku inuu ku qanco oo yaqiin iyo iimaan qalbigiisa gasha inay noqoto. waxay inagala gudboon qur-aankan kariimkaa ilaahay inoogu nicmeeyey inuu ina soo gaadhay oo aynu ka mid nahay dadka uu la hadlaayo.
وإلهي با النبي محمد أمري إنه يراهدو لأنذركم به ومن بلغ قرآن كوحا اللي يقول سودة تيي كوينا هدد شوغينا نقدقو يعيد كستو قادو مركا ينقو مينا نشوغين لكن وحي نكمل نهاي كوا قرآن كو سو قادي وحي نقل قدبان قرآن كا إنا نبرانوخ القرآن الكريم تاسين كنا قرينا ذاتك كوا أخير كبدن سيد رسول كانوا عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري خيركم من تعلم القرآن وعلمه وحيدين كو خير بدن قفك قرآن كبرته ذاتك نسي برا حديث كاسي رقا قاركود أيو أفرطن صندود فريسية مساجد كالنبي عليه الصلاة والسلام وصابوا وقول نقضي إن ذاتك قرآن كبران أبو عبد الرحمن السلمي حديث كامر كوري وحول هذا الحديث هو الذي أقعدني في هذا المكان حديث كان يسقى هالكاي فريسية أفرطن صندود أيو صلاة الصبح دبادات تيرك مساجد كم إذا أنت وكنت تير صدا ذاتك قرآن كهالكاسي وكبراي حدوني أن يكون خير الناس ذاتك كو خير بدن النقطة قرآن كبرشدي سالقو قارية أخرين سين لا برتو إن لا حفظيو معنيه سي أحكامتي وتلمامي قرآنكو قفك مسلم كاهي إنو برتو قرآنك وحي نقل قدبون قفك استوى يقانا ذاتك كلا إنو سيبرو وخير ذاتك أتوسيسي أجر كي كهلين مثل يقبات كهليسا الدال على الخير كفاعله رسولكنا عليه الصلاة والسلام وحمال قوة أماني قفك قرآنك برتا يقفك قرآنك ذاتك سيبره قرآنك وحي نقل قدبون مركا أينو مقالو أينو بران معنيس أينو فانو مركي بين أينو رقنو نقن إيا النولول إنك موقته صحابة رسول كنا ساسي هاي آيدي مركي سود دكتو مركي نولو شو ديك مقنس آيدي واحد سود دكتو خمرقة ممنوع عيسي خمري ميسي هاي سنة أفكي دول كوقليين إلا ودوين كمقالة مدينة شرعي سابيها خمري سابيها الروب كودر دري آيدي حجابك أيها سود دقي رقيب رسولك عليه الصلاة والسلام كما غلي قريه هذا كلها نقدين دمر كيبه هبينك وآخرين صبح يلقوا مارق مقالة مدينة قبل بلا حجابه أبو عبد الرحمن السلمي وحيري كوي قرآن كنور ديجي تشري وعثمان بن عفان رضي الله عنه وكم يديهاي waxay noo sheegeen 10 aayadood markay qiradooda bartaan akhrintooda inaanay ka talaabi jirin oo aayado kale aanay u gudbi jirin ilaa ay ku camal falaan quraan qofku hadii ku camal falo wuxuu ka qaadayaa nolol wanaagsan deganaansho iyo xasilooni waa dhikriga ilaahay qulubta ay ku xasilayso noloshiisa oo dhan ayaa hagaagaysa oo barakoobaysa waa kitaab mubaaraka ilaahay baa sheegay kitaab barakaysan inuu yahay quraanka waxay nagala gudboon إن أينو الله نولانو وأينو الله صاحبنا أمر والباينو أخرينو اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه قرآن كأخريا ويا مالنت قيامه وحو إيمانا يسقوا شفيعة قادة كوي أخرين شرين وحورك عيسى قرآن كسورة البقرة هي سورة آل عمران مركا الآخرين ينوين نقطو أخرين تاسي توضت صفة إلهي والشاقي وقرآن كمعني سين الله في رصده وقفك إيمان وكرية خشوع الله كعبسي يكون دينته وكون رقمه أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أغفالها قرآن كا دادكي نقول الرئيه ونكسنا الساقا أيه كدكتين هجيه أي دب الصعدان حرد إلهي سبحانه وتعالى أيه قعان تقليين قريه هذا يكون عامرين ويكون قرحيين والزينة دي قروح لنرشة waxay ahaayeen kuwa joogteeya akhrinta quraanka Uthman ibn Affan radiyallahu anhu markii ay hareerayeen kuwii dulmiga iyo gardarrada ku socday ay dooneen inay dilaan xaaskiisa waxay ku tiri haddaad dilaysaan iyo haddaad deynaysaanba wuxuu ahaa kitaabka ilaahay oo quraanka ah mid ku khatima ragcad qura habeen kasta oo u duma quraanka ayuu dhameyn jiray hal ragcad ayaanu ku tukan jiray الإمام الشافعي رحمه الله وعلماء الإسلام كمذا وعظماؤهم وحوها رمضان مركا يسوق الشو لحدا تشرمي القرآن كرمائية تامعين ذو حوية مالنتي ولا بتشرب ولا منشري وليبا صلاة دحدة أيو كل منشري قرآن كمركا أخريان الراد أيو نلشوا ذو قرآن كوكوية لني تاصيا إننا إن لجود بون واتشي بالنقوة وحواتشي بالنقوة رمينا نردن إنه نوعلنا القرآن الكريم كأ
إلهي بقى سبحانه وتعالى يري وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم sidaas ayaa arrimaheena iyo axwaasheennu ay ku hagaagaysaa alqur'aanu alkariim waa nolosha dhabta ah isagay guryuhu ku nool yihiin guriga qur'aan ka jira waa guri nool guriga qur'aanku ka maqan yahayna waa kharaabun calaa ahlihi iyadoo la degan yahay ayuu haddana kharaab yahay yaynaan ka qadin wanaagga qur'aanka iyo fadligiisa iyo darajada sare ee lagu gaadhayo hadalka ilaahay subxaana watacaala ilaahay hayna waafajiyo kuwa xeedhada ilaahay iyo sooriyadiisa ka qayb galan ilaahay naga dhiga wallahu aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره